sanadkii 2003 waxaa gudaha Dubai looga dhawaaqay mashruuc cusub oo bog dahabi ah kaga jiray horumarka iyo quruxda ay tiigsanaysay magaalada Dubai. waxaana ugu muhiimsanaa mashruuc loogu yeeray The World adduunyada waa jasiirado gacan ku sameys ah ee aadamigu sameeyay mashruuc ku kacay in ka badan 10 bilyan oo dollarska Mareykanka ah. qaabka jasiiradahan ee aadamigu sameeyay waxay u muuqikaayeen oo shaqligoodii laga soo minguliyay khariidada adduunka. waxaana loo qorsheeyay inay noqoto goob dalxiis iyo hoyga ay ku hamiyaan dalxiisayaasha in ay mar un booqdaan. nasiib darro waxaa ka soo wareegatay dhowr iyo 10 sano markii la carbuuxiyay jasiiradahaasi ilaa maantayna waa kuwa xaniban oo ma jiraan wax sidaa u weyn oo halkaasi ka qabsoomay, iyadoo hadeersa lagaga cabsi qabo in ay ku quusaan gudaha badda. maxaa ku dhacay mashruucii ugu hanka sareeyay ee Dubai? miyuu isku bedelay mashruucii ugu khasaaraha badnaa ee laga fuliyay gudaha magaalada Dubai? muuqaalkeenan maanta waxaan ku eegaynaa jasiiradaha gacan ku sameyska ah ee Dubai, mashruuca bilyanka dollar ee ay baddu qarqinayso. magacaygu waa Maxamed Xuseen, ku soo dhawaada xalqadeena maanta. waxaan in badan ognahay in Dubai ay tahay magaalo ka duwan magaalooyinka kale ee caalamka, iyadoo martigelisa dhismaha ugu dheeraa ee laga taago adduunka Burj Khalifa, kuwa ka mid ah hodheelooyinka ugu heerka sareeya dunida, xarumooyinka ganacsiga ee ugu horumarsan, iyo weliba suuqa ugu weyn ee laga iibsado dahabka caalamka idil. horaantii 2000 kororka hantida maguurtada ah ee Imaaraadka ayaa gaartay cirifkii ugu sareysay, waxaana la filayay in la horumariyo fursado aad u weyn oo lagu abuurayo dhismooyin iyo dhulxeebeedyo macmal ah ama gacan ku sameys ah kuwa oo ku yaal gudaha Dubai. waqtigaasi inta badan waxaa kor u kacay dhismooyinka cajiibka badan ee laga dhisay gudaha Dubai. sidoo kale dhulalka xeebta Dubai horay ayaa loogu fiday. markaan u tagno dhismooyinka dhulalka xeebta ah laga taago, shirkadda Nakheel Properties oo ah shirkad ay leedahay dowladda Imaaraadka kana howlgasha real estate-ka ama dhismaha, ayaa isbedelo aad u waaweyn ka sameysay dhulalka xeebta Dubai muddo 2 sano oo keliya. ugu horeyntii shirkaddan waxay la timid qorshe ay ku dhisayso 3 jasiiradood oo u eg geetimareed ahna gacan ku sameys, kuwa oo kala ah Jumeirah, Deira iyo Jabal Ali. jasiiradda Deira ayaa ahayd midda ugu weyn. sanadii 2003 ayaa lagu dhawaaqay mashruucii ugu dambeeyay ee The World ama adduunka. jasiiradahan waxaa loo qorsheeyay inay ka koobnaadaan guryo gaagaaban, dhismooyin aad u dhaadheer, qaybo ka mid ahna waxaa loo qorsheeyay goobo commercial ah oo lagu ganacsado. marxaladda dambe ee mashruucan, jasiiradahan waxaa loo qorsheeyay in lagu kabo oo lagu kobciyo jasiirado kale oo mashruucan ka dhigaya mid aad u weyn, iyagoo guud ahaan la isku oran doono The Universe, caalamka, kuwa oo marka laga soo eego hawada sare u muuqan doona jasiiradihii hore ee u taagnaa dunida oo ku hareeraysan jasiirado kale oo leh qaabka qoraxda, dayaxa, kowkabyada dhulka ku hareeraysan, galaxiga iyo Milky Way. mashruucani oo markaa matalayay hamiga magaalada Dubai iyo dadkeeda hodanka ah. heerka kalsoonida ka dambaysa mashruucyadan ayaa ahaa mid aad u cajiib ah. waxay leedahay dhammaan suurtagalnimada ay ku noqon karto goobta ugu dalxiiska badan dunida. taasina waxay hubaal u abuuraysaa ilo dakhli oo cusub meel sida Dubai oo kale ah, halkaasi oo inta badan hantideedii ay ka timaado soo saarista saliidda. hadeer maxaa ku dhacay qorshayaashan hanka sareeyay? dhamaadkii 2006 waxaa gabagaboobay oo gacmaha laga qaaday dhismihii abartimadii koowaad ee laga dhisay gudaha jasiiradda Palm Jumeirah. ulaha dhaadheer ee garab yaala ayaa loo qorsheeyay in laga dhiso guryo gaagaaban oo gaar loo leeyahay, halka calacasha weyn ee ku wareegsanna loo go'aamiyey in laga taago hodheelada raaxada. intii lagu guda jiray dhismaha guryaha ku yaal jasiiradda Palm Jumeirah ayaa shirkadda Nakheel Properties go'aansatay inay bilowdo mashaariic kale oo ugu horeeyay dhismaha Burj Khalifa oo qorshuhu ahaa in uu noqdo dhismaha ugu dheer adduunka. sidoo kale 2008 waxaa daaha laga qaaday hodheelka Atlantis ee ku yaal gudaha jasiiradda Palm Jumeirah. Just last week, Dubai spent $20 million for a party to open the Atlantis Hotel. Behold, Atlantis rising! The headline was, Dubai parties as the rest of the world reels from the economic crisis. Perhaps not anymore. balse qorshayaashan waxaa dharbaaxi ku noqday hoos u dhici dhaqaalaha adduunka oo xilligaa saameyn baan u geystay Dubai. kadib hoos u dhici dhaqaale ee ku habsaday Dubai, qaasatan shirkadaha ku lug leh dhismooyinka guryaha, ayaa sababtay in dhammaan mashruucyadii waaweynaa ee laga waday gudaha Dubai si kadis ah qasab ku noqotay in la joojiyo. sidoo kale mashaariicdii la xiriirtay jasiiradahan gacan ku sameyska ah
ayaa albaabada la isugu dhuftay. Dubai seemed immune to an economic crisis. But now the government says it will pull back on an aggressive building spree. The global economic downturn has caught Dubai. If the merger and the bailout plan fail to stabilize the market, banks will squeeze lending and real estate prices and rents are likely to keep dropping. A nightmare scenario for Dubai, a city that has thrived on global growth in recent years, but now may become a victim of global downturn. baahiyaha loo qabo in mashruucyadan la gabagabeeyo ayaa horseeday hoos u dhac degdeg ah oo ku yimaaday qiimaha jasiiradahan iyo goobaha kaleba. jasiiradaha bacaadka faaruqa ah ee ku baahsan dhul dhan 7 kilomitir ayaa gebi ahaanba la ilaaway kadib markii shirkadda Nakheel Properties ay ku dhawaaqday in ay lacagaha u celinayso maalgashayaasheeda, midda oo horseeday in jasiiradda Jabal Ali faraha laga qaado. sidoo kale jasiiradda Daira oo carab buuxinteedii socotay ayaa hakad ku yimaaday. sanadii 2013 Nakheel Properties waxay isku dayday inay badbaadiso mashruuca jasiiradda Daira iyadoo dib loo sumadeeyay lagana bedelay magacii hore ee Palm Daira. baaxadda mashruucan ayaa la soo yareeyay, carab buuxintii lagu wadayna waa la joojiyay, hadeerna waxaa loo yaqaanaa jasiiradaha Daira. qorshihii mashruucan oo dhan waxaa lagu soo koobay oo keliya in laga dhiso 2 dabaq oo dhaadheer, moolal ganacsi iyo wadooyin loo maro goobaha laga tukaamaysto. sidoo kale jasiiradihii The World inta badan carbuuxintii jasiiradahan ayaa horey loo dhameeyay. qaybo badan oo ka mid ahna durba waa la kala iibsaday ka hor inta aysan dhicin hoos u dhici dhaqaale ee shirkadaha dhismaha Dubai. balse dhammaan maalgashayaashii iibsaday qaybahaasi ayaa hadeer wajahaya dhibaatooyin iyo khasaarooyin maadaama mashruucyadan oo dhan aynan wax horumar ah oo muuqda sameyn. inkastoo dhibaatadii dhaqaale kadib shirkadihii Dubai ay dib u soo ceshteen dhaqaalahoodii, maalgashiga mashaariicdana ay sii korortay, haddana nasiib darro mashruuca weyn ee The World waxba kama faa'iidin kororkaasi dhaqaale, sababtoo ah in maalgashadayaasha badankood aysan wax dakhli ah ku taakuleen si loo dhameeyo mashruucyadan, maadaama aynan hubin dakhliga ka soo bixi doona mashruucan, misna ay muujinayaan cabsida weyn ay ka qabaan. taa oo ka dhigaysa in dhowr iyo 10 sano kadib markii lagu dhawaaqay mashruucii ugu hanka sareeyay ee Dubai uunan ahayn mid ku habboon xilligan la joogo. waxaa jira sababo badan oo ka dambeeya xaaladdan oo ay ugu horeeyaan dhibaatooyinka deegaanka iyo shaki ka jira cimri dhererka jasiiradahan. goordhaweyd ayaa jaraa'idooyinka lagu baahiyey in dilaacyo lagu arkay qaybo ka mid ah jasiiradaha The World, halka sare u kaca heerka badduna ay tahay walaaca ugu weyn ee khatarta ku ah mashruucan, lagana yaabo in ay baquusaan. sidoo kale waxaa jira cabashooyin badan oo ka jira dhismooyinka ku yaal jasiiradda Palm Jumeirah, taa oo ka dhigaysa in xitaa haddii jasiiradda The World laga dhiso dhismooyin ayaduna cabashooyinka oo kale ay imaanayaan. isku soo wada duubo, saameyntan xun ee deegaanka ayaa ka dhigaya wax aan macquul ahayn in la suuq geeyo mashruucyadan, misna lagu qanciyo dadka in ay maalgashtaan. hase yeeshee waxaa jiro dhismooyin qaar ah oo laga bilaabay gudaha jasiiradaha The World, sida in dhismooyin yaryar laga dhisay jasiirad loogu magac daray Abarnavik. sidoo kale 2012 ayaa markii ugu horeysay la furay jasiiradda Lebanon, iyadoo markaa dalxiisayaal qaar lagu geeyay halka doomo. sanadii 2014 ayay ahayd markii lagu dhawaaqay mashruucii ugu weynaa ee laga fulin rabo jasiiradda The World. maalgashade u dhashay dalka Austria ayaa soo bandhigay qorshe uu ku doonayo in dhismooyin uu ka hirgeliyo qaaradda Yurub ee ku dhex taala jasiiradaha The World. mashruucaasi ayaa loogu magac daray The Heart of Europe, iyadoo la rabay in loo ekeysiyo qaaradda Yurub. dhismaha halkan laga dhisi rabay waxaa u badnaa hodheelada raaxada oo intooda badan laga soo minguriyey naqshadaha hodheelada ku yaal magaalada Venice iyo Monaco. sidoo kale maqaayado lagu iibiyo cunooyinka reer Yurub ayaa iyagana qorshuhu ahaa in laga dhiso. mashruucan ayaa hadeer dhismihii dhex maraya, qaybo badan oo la dhisay ayaa jiro, hoteelo furan ayaa jiro oo dalxiisayaasha u banaan. waqtiga oo keliya ayaana na tusi karaa haddii ay noqon doonaan kuwa laga faa'iido sida la qorsheynayayba. dabcan mashruucyadan ayaa guulal aad u weyn u soo hoyin doona Dubai haddii ay ku guuleystaan, ayadoo weliba u soo jiidi doonta indhaha dalxiisayaal aad u badan, kaba badan inta hadda u imaada, waxayna ka saacidi kartaa kororka dhaqaalahooda. balse su'aasha taagan ayaa ah, miyay dhici doontaa midda? bal adigu maxay kula tahay? mashruucyadan ma yihiin kuwa laga xaqiijin doono guulihii loo qorsheeyey, ama waxay noqon doonaan hal bacad lagu lisay? sidoo kale haddii aad fursad u hesho miyaad booqan lahayd halka? sababtoo aniga aad baan u xiisanayaa dabcan inaan hal mar uun soo eego. fikirkaaga iigu reeb commentiga hoose, waan jeclaan lahaa inaan aqriyo. halkaas ayaan kaga baxayaa muuqaalkan. fadlan haddii uu ku qanciyey lagaray lana sii wadaag asxaabtaada. waa inoo iyo muuqaalka kan xiga. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. amaano allah.